adduunka kani waxaan leenahay waa wax xaqiiqa cinda allahi subxaana wa tacaala waayo inuu liito waxa kuugu filan qur-aan badan oo soo arooray maala ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy walowlaa an yakuna annaasu ummatan waaxida lajacalna liman yakfuru biاlraxmani libuyutihim suqafan min fida wamacaarija calayha yadharuun walibuyutihim abwaaban wasururan calayha yataki'uuna wazukrufa wain kullu dalika lama mataacu alxayaati addunya waalaakhiratu cinda rabbika lilmuttaqiin waman yacshu can dikri الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب آيات كان إلهي وحليه سبحانه وتعالى هدي لا يهي با إلهي لا يهي إناني ضق ودقالو بيني قف كستو قالوا بوحكو أبال مرين لها با إلهي لا يدوك قبيس يعني إنو كفر أبال مرون نغضا وحي شاكسة حقارة ديك يلي ذا شديد تاوغد با إلهي وحليه قف كستو إلهي كقالوا با وحارو يالي لها بري سقفو في ضيهي سلبر يهي إيا معارك سلام اللغكرو أبواب تودا بريها الباب دودا sariiraha waxa ka dhigi lahaa zukruf iyo dahab iyo mid lagu raaxaysto wax liita soo maaha qofku markuu ilaahay ka gaaloobo ilaahay wuxuu siinayaa waa wax liita in lagu abaal mariyo laakiin waxaan uga cabsanayaa baa ilaahay leeyahay dadka oo dhan lumaan adduunyo jacaylku inuu dadka oo dhan wadada ku wada rido la gaaloobo taas daraadeed baa looga cabsanayaa laakiin ilaahay agtiisa qiimo kuma laha sida daraadeed buu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi xadiidka imaamu axmed iyo tabraani iyo bayhaqi ay warinayaan ee sheekh alalbani xasanka ku tilmaamayo wuxuu nabigu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh in allah تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كوحو وقدق التصالة وحب بني آدم ككسوة بحاية الصحراء ونبي كتل مامي يعني أدونك وحو لم يدي عبالة ليه انت السوليقة الله دقا مصفش الله دقا أدونك ما كان قيمي سوا محي صحراء ضمي أكتين قيمة كلام سواح ليسكفو بيو والله أسطره وأبتاد الله يسكا إلاليو وأركتد الله يسكا إلاليو حديث الإمام ابن حبان يطبران يورينا يانا شيخ الألباني وتحسيني وحنبه ليه إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير إلهي وحو مثال وقد إبال ليه وحا عنطان أي أدونك مثال وقد حتى أبو النبي يقول وإن قزحه قزح هو توبلك حتى أبو النبي قلت الماما يا كدر در بسباس يوحو حلقنا أنا يا ملح يا مع وحا دون تقدر عنصك الصاد وغشق يسوي معاني يسوي بك الله عنام حين غطاه واسكم إدهم تقدر أدد بالنبي يقول عليه صلوات الله وسلام عليه أدونك قيمين تسوحي إلهي أكتي سكتها يقول النبي يقول ومثال الله يدكن دغيا cunada cunteen waxa ay ku dambaynayso ayuu yahay adduunkuna mid uu ku dambaynayo idan ma aha adduun qofka muslimka aftiisa wax qiimo weyn lama aha adduunyada nooca kani waxa uu nabigu ku tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda allahi janaha ba'uda adduunkana arkaytaan oo dhama haday ilaahay afti garab kaneeca leeftay labada baala ay ku duushay intay leegi marka hore kaneecayaan oo wax naflaan ahayn haddana kaneeca la qaybiyay markaas waxa la qaatay garab kamida garab kaneeco intuu qiimaadtaada kaleey yani kaneecan qiimo lahayn waaba garabkeeda tadaraadeed buu nabigu wuxuu leeyahay salawaatullaahi wa salaamu calayhi kaneeca garabkeed hadday la qiimo tahay adduunku gebigiiba alle aftiisa ma saqa kaafira minha shurbata ma gaal biyo kama dhadhan siiyeen buu nabigu yidhi salawaatullaahi wa salaamu calayhi idan mar hadday kaneeca garabkeed ka liidato waanay qiimo alle aftiisa ku lahayn subxaana wa tacaala uma aba yeelin gaalkii caba iyo ciddii heshay iyo waxa kan waayo qiimo agtiisa kagama fadhido xadiidka imaamu tirmidi ibnu waajah baa warinaya sheekh albaani صحيح لغيره مكتل المامية بل النبي صلوات الله وسلامه عليه وكتل المامية الدنيا سجن المسلم وجنة الكافر أدونك مكا لا يقوى قفك مسلم كحبس يسيب النبي كتل المامية ويقفك مؤمن كأدونك وحوية دار ابتلاء وامتحان وحك الصوص قلاء ما هنتها النغضة مقع النغضة ماموس النغضة وحك الصوص نمعو إلى هاي سيئ وحوها يستايلي تميز وي تحامي وحوارك يا ميد آخر اللي ويديني ينيسي سيدة درادة أدونك الله أكيا قفك مسلم كأكتي سحبت بكيه حبس بميوية meel lagu raaxaysto adduunka kale qofka muuminka wuxuu ku yahay xabsigaas waayo wuxuu raadcaynaya qofka muuminka inuu ilaahay la kulmayo inuu janno galo jannana waa nimcaad u weyn tadaraadeed meesha tani xabsi buu u arkaya taa awgeed buu nabigu wuxuu tilmaamaya qofka muuminka ilaahay la kulankiisu jecel yahay munaafiq iyo gaalkuna ilaahay la kulankiisa ayuu necab yahay waxa uu nabigu ku tilmaamaya addunya malcuuna malcuunun ma fiha yani adduunka kan waxa la tilmaamaya inay tahay sababu zayr waxyaabaha qofka diintiisa ka weeciya tadaraadeed buu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya adduunkani inuu yahay mid ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey waxa joogaan ay malcuun yihiin ilaa iyo laba qolaa la soo sheegay ilaa dikra allahi waman waalaa wa caalimun aw mutacallim ilaa iyo ilaahay xuskiisa iyo inta ilaahay ku xidhan ee muuminka ah iyo qof caalima oo wax garanaya iyo mid mutacallima oo wax baranaya intaa waxaan ahayni naf ma laha baa la leeyahay subxaana wa tacaala